aynu ku bilownay dhagaxaantii ku xirnaa wadooyinka degmada Wadajir oo laga qaaday. Dhagaxaan ayaa laga qaaday wadooyinka waaweyn ee gala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir kadib markii ay badatay cabashada dadka deegaanka. Wararka ayaa sheegaya in dhagaxaantani ay ku horjarnaayeen dhammaan jidcadayaasha gala xaafadaha kala duwan ee degmada Wadajir, kuwaas oo suurtagelin waayay in lagu isticmaalo wadooyinkaasi gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Dadka deegaanka iyo warbaahinta u sheegay caqabadaha ugu weyn ee noloshooda ragaadisay muddooyinkii ugu dambeeyay ay ahaayeen dhagaxaantaasi, maadaama dadka xanuunsan iyo meydadka wadooyin ay marsiyaan ay waayeen, sidaasina ay kaliftay in degmada Wadajir ay noqoto jasiirad gaar ah oo ka madax bannaan degmooyinka kale ee gobolka Banaadir. Wadada keliya ee degmada Wadajir laga geli jiray lagana soo bixi jiray ayaa waxa ay ahayd mid ka baxda isgoyska Soobe ee tagtay isgoyska Danwadaagta ee degmadaasi, midana ay xirmi jirtay xilliyada roobka ka da'o magaalada Muqdisho maadaama ay biyo fariistaan. Dhinaca kale, ciidamo ka tirsan Soomaaliya iyo Liibiya oo ku dagaalamay Turkiga. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya isku dhac dhex maray ciidamada dowladda Turkiga ay u tababarayso wadamada Soomaaliya iyo Liibiya. Sida wararku ay sheegayaan, askartani oo hal xero lagu tababarayay ayaa gacan iskula tegay kadib markii askari ka tirsan ciidamada Liibiya ay midkood tooray ku dhaawacay askari Soomaaliyeed oo halkaasi ku sugnaa, isla markaana ay ka dhidhiyeen ciidamadii kale ee tababarka kula jiray. Safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ayaa beenisay wararka lagu baahiyay baraha bulshada oo sheegayay inuu gacan qaad halkaasi ka dhacay ay ku dhinteen 25 ruux oo isugu jira Soomaali iyo Liibiyaan. Turkiga ayaa tababara ciidamada dalalka Soomaaliya iyo Liibiya lagu daray Suuriya oo lagu eedeeyo inuu u adeegsanayo fulinta hadanihiisa gaarka ah ee wadamadaasi colaadda iyo dagaalada sokeeye ay ragaadiyeen. Geesta kale, Xasan Sheikh oo dowladda federaalka ku eedeeyay in dalka ay gelisay dib u dhac baahsan kadib markii dhowaan gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya uu soo saaray liiska xildhibaano kuwaasi oo ku sheegay in ay ka shaqaynayaan doorashooyinka xildhibaanada ka imaanaya gobolada waqooyi, ayaa arrintaasi waxaa ka hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa tilmaamay in dowladda looga baahan yahay in doorashada xildhibaanada ka imaanaya gobolada waqooyi ay dadkoodii u madax bannaanayso, isla markaana ay dhageysato hadallada Cabdi Xaanshe Cabdulaahi. Sidoo kale, Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ku eedeeyay hoggaanka dowladda 4 sano ee dalka ay maamulayeen aysan gaarsiin horumar siyaasadeed, balse uu sheegay inay dalka geeyeen dib u dhac baahsan. Geesta kale, Muuse Biixi oo eedayn u jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay isbedelada haatan ka socda gobolka Geeska Afrika, waxa uuna eedeymo u soo jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya isaga oo baaq u diray sidoo kale beesha caalamka. Madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya oo ka faa'iideysanaysa aqoonsiga ay caalamka ka haysato ay ku soo qaadatay dagaal diblomaasiyadeed. Inkastoo aanan haysan dhaqaale badan, haddana yeeli mayno in waxyeeleynta qarankeena dhaqaale lagu soo gambado, ayuu yiri madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Isaga oo baaq u diray beesha caalamka ayuu yiri Somaliland waxa ay si cad u sheegaysaa beesha caalamka oo dhan iyo cid kasta oo daneynaysa arrimaha Soomaaliyeed in aqoonsiga la siiyo qayb ka mid ah dalkii burburay ee Jamhuuriyaddii Soomaaliya uu noqday hub lagu burburiyo jiritaanka Somaliland. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa hadalkaasi ku sheegay in Somaliland ay diyaar u tahay in ay tijaabo lagu sameeyo qarannimadeeda, isaga oo tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya aanan haatan lala barbardhigi karin xukuumadda Somaliland. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaare Roble oo kulamo ka bilaabay Kuwait. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa xilli dambe oo xalay gaaray magaalada caasimadda u ah dalka Kuwait. Wafdiga Ra'iisul Wasaaraha waxaa ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan dowladda Kuwait, waxa ayna uga qayb galayaan tacsi iyo duco amiirka dalka Kuwait ee dhowaan geeriyooday Sheikh Sabaax Al Ahmadi Al Sabaax. Siyayaha
wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalk Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahiyay socdaalka ra'iisul wasaaraha dalka iyo madaxda uu la kulmi doono. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa la filayaa inuu kulamo ka bilaabo dhowaan dalka Kuwait. Dhanka kale, Trump oo cisbitaalka uga soo baxay si uu u salaamo taageerayaashiisa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa muddo kooban ka maqnaa cisbitaalka si uu u soo salaamo taageerayaashiisa oo ku sugnaa bannaanka cisbitaalka lagu daweynayay. Madaxweynaha ayaa ku jiray gaari madow waxaana la arkayay isaga oo afka xiran isla markaana taageerayaashiisa uga gacan haatinay gaarigii uu ku jiray gudihiisa. Madaxweynaha ayaa mar sii horeysay bartiisa Twitter-ka ku qoray in uu si kadis ah ula kulmi doono taageerayaashiisa. Mr. Trump oo lagu dhaliilay sida uu u maareeyay cudurka safmarka ee corona ayaa sidoo kale sheegay inuu wax badan ka bartay fayraska. Xaaladda caafimaad ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo wanaagsananaysa kadib markii laga helay cudurka corona, waxaana laga yaabaa in maalinta Isniinta ee foodii nagu soo haysa cisbitaalka laga saara sida uu sheegay dhaqaatiirkiisa gaarka ah. Ugu dambeystii, maqaayadaha iyo baararka ku yaala Faransiiska oo la xirayo. Maqaayadaha iyo baararka ku yaala dalka Faransiiska ayaa loo xiraya cabsi laga qabo mowjado labaad oo xanuunka COVID-19 ah. Maqaayadaha iyo baararka ku yaala magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransa ayaa la amray in dhammaan la xiro wixii ka dambeeya maalinta Talaadada. Arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii ay kordheen kiisaska xanuunka COVID-19 ah. Xayiraadaha cusub ayaa lagu dhawaaqi doonaa maanta oo Isniin ah. Axaddii oo qura Faransiiska waxaa laga diiwaan geliyay in ka badan 12,000 oo marxalado cusub ee xanuunka ah, halka magaalooyinka qaar ay xayiraadaha cusub ka dhaqan galeen toddobaadkii hore.